هذا نوع يسكن الله سبحانه وتعالى صاحب يرعى كما علينا سيده قروحda badan ay u soo xaadirteen barnaamijka waxa halkan aan u joognaa maanta waxa weeyaan barnaamijka imtixaanaha dugsiga aqoonta qaybtiisii sagaalaad oo ay soo agaasintay golaha kasmo oo u taagan kobcinta afka Soomaaliga murtidiisa iyo weliba qoraalkiisa sheeko fareedka galabta halkan ka qabsoomi doonta oo mawduuceedu uu yahay sheeko fareedka Soomaalida gudmar iyo sooyaal waxa marti noogu ah Ustaad Cabdullaahi Raage oo loo yaqaan sayidka asaga ayaa inta badan waqtiga qaadan doona markii ay ka soo wareegtaan su'aalaha iyo qaybaha dambe ka geli doonta inta barnaamijka horaantiisa loo guda gelin Ustaad Cabdullaahi Raage ku soo dhawaado hal daqiiqo oo ku saabsan Cabdullaahi waa qof ما نسكت شيء ده. بيسوي نسكول نبرج ساسا كروت ما فيه. عبد الله قف. نعم هذا غيره. هذا بحسب ايش يعني؟ برامج كهرباء بلينا. وسيم ولا حسنا؟ ها. بس اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا. wax badan bas kama sheekay karaan waqti marka magacaygu way ku filayaan intaas hadaan ugu gudbo waxaan u galaynaa mawduuceena hadda kamaradu fadhido aniga ku soo kaydin leh Allah mawduucan oo maxaa ku ah sheeko faneeda Soomaaliyeed ama sheeko faneeda Soomaaliga kabasi loo dhigo xawlaha Soomaaliyeed تيم كلام نقول بيرنا سودو هذا لنا هاي موضوع الشيك فنادق أما شيكada Soomaaliga ama Soomaaliyeed oo ay team kasmo inoo soo bandhigeen inaan falanqeyno ama ka hadalno ayaan bariyaha ku mashquulsanaa marka waxaan ka geyn waayay inaan hordhac oo na sameeyno oo wax inta ka balaaran ayna kartideed lahayn iyo waqtigeed toona marka waxaan ka warbaahinaya cidii uu mawduuc ku gaabto istraada halkii aad filisay ma gaadhin xagga hore aan uga sii xordaaranaya waxa ku bilaabanaa sheekadu sideedaba ama novelka waxa la yiraahdo Soomaaliga sheeko faneed loo bixiyay inkastoo aan qasab ahayn aan saan islaahay oo sheeko ay buuxinaysa macnaha soo loo sii mataqaana faneeyo ay jirin sideedaba sheekada fan u tahay sheekadu waxa weeye waa warin horta waana warin taariikheed mararka qaar waa suugaanta casriga ee bedeshay gabayga iyo wixii la midka ahaa casriga lama gabiyo casriga sheeka la qoraa marka sheekadaasi dabcan waxa leedahay maxaan ku astaamo gooniyo oo ka duwaya sheekooyinka tusaalahaan noocyada sheeko ee ka horeysay sheeko faneeda waxa ka mid ah sheekada la yiraahdo ustuurada ama sheeko baraleyda Soomaaliga aan u naqaano oo dabcan sheeko baraleyda waxa loo yaqaanaa inay tahay wax la iska yiri laakiin iyada laftirkeedu waa qaab loo wariyo wax loo wariyo ama taariikh loo wariyo ama faham maxaan ku lahaa daahiro inta la fasiray fasirkeedii laga dhigo wax taariikh ahaan loo wariyo waxa ku fasiraa ama uu kala saara taariikhda caadiga maxaan ku lahaa Ali Cisad Bigo Facebook-giisa Hurubi ila Xurriya wuxuu kala saara taariikhda laba wada buugga taariikhda ee akademiga taariikhiyan ku qoraa waa taariikhda dusha waa taariikhda waxa muuqda sheekaduna waa taariikhda laabta taariikhda gudaha taariikhda dareenka iyo maxaan ku raahdaa iyo maxaan ku raahdaa inficaalka ama la falgalka marka sheekada noocaasa novelka Ingiriiska loo yaqaano character kale main story kale bilowg iyo dhamaad kale maxaan ku raahdaa inay loo qoray la daabaco inta badan yani astaamaha le baan ka warramaynaa marka sheeko oo dhan maaha marka saalena waxa ka baxaya sheeko Soomaalideennii hore maxaan ku raahdaa ama laga warinayay dagaalo ama laga warinayay geel kala dhacay ama gabadh guursigeed ama maxaa la odhan jiray mesela sheekooyinka xarunta looga warrami jiray maxaa la odhan jiray tusaale ahaan ustuuradii maxaan ku raahdaa dhegdheer oo kale waa ka baxaysaa moogta sheekada way ka baxaysaa haddaan dib looga faa'iideysan oo lagu dul dhisin sheeko cusub gudaha lagu tegi doono marka hordhacinta aan kaga baxo qodobka ugu horeeya aan jecelahay inaan ka hadlo waxa weeye
sheeko faneedda casriga ee Soomaaliyeed maxay ku curataa ama say curatay ama curashadeed anigu saan islaahay ama saan qabo waxa ay ku curatay marka ay isbedel ku dhacay nukhbadii bulshada Soomaaliga iyo nidaamkii tacliinta marka isbedel ku dhacay nukhbada ama haldoorka bulshada Soomaaliga waxay ahayd markii hore abwaanka suugayahanka iyo wadaadka sheekh xerta caalimka mataqaana ama xer ha lahaada ama faqiih madax banaan ha ahaado xer lahayn laakiin sheekha iyo suugayahanka ay nukhbadu ahayd dadkaas ra'yiga iyo fikirka sameyn jiray iyo aragtida wacyiga bulshadana abuuri jiray aqoonta bulshadana soo saari jiray oo ka tarjumi jiray laakiin Soomaalida iyo xadaasadu markay kulmeen waxa isbedel ku dhacay cidda ay tahay nukhbadu waxa abuurmay marka nidaamkii tacliinta oo isbedelo laga soo guuray tacliintii dugsiga iyo xerta iyo maxaan ku raahdaa nidaamkii fiqiga loo baranayay ama diinta loo baranayay ama tacliintii kale waayaaragnimada iyo inoo mataqaana hibada faneed ama hibada suugaaneed qofku ku laro abwaanimo iyo barasho mataqaana dad iyo deegaan iyo khibrad kaana oo suugaanta ku abuuro oo waaqac u fiirsado oo dhacdooyinka u fiirsado wax ka yiraahdo wax ka sheego ka gabiyo oo halkay oran jireen waxana wax laga gabi jiray halkii ka timid yani inuu qofku daahira arko sida qofka cilmi baaraho kale cilmi baaro markuu daahiro shakhsan markuu arko daraasad buu geliyaa abwaankuna markuu wax arko uu ka gabi jiray waa labada saasay moogtahay isku xaaladii wax ka abuuri karayeen baad ay dareemaysaa marka nidaamka tacliimeed markii laga guuro waxa loo soo guuray nidaam casri ah oo dugsi iyo waxaan jeedaa iskuul iyo buug iyo qalin iyo curriculum cayiman iyo macallin tababar gooniyo soo qaatay iyo nidaamkaas ayaa loo soo guuray manhajka iyo xadaasadaas waxay abuurtay nukhbo cusub nukhbadaas suugaan cusub markaa iyo laftarkeedu curisay suugaantii nukhbada cusub curisay ay sheekadu markaa kow ka ahayd waxa la mid ah hadaan inkastoo ay dhabarka ku hayso suugaantii hore laakiin heesta casriga ee laftarkeedu waxay leedahay daabic xadaasiya waxaan jecelahay inaan la isku qaldin laba shay markaan sheekadan wadno ama mawduucan xadaasada iyo reer magaalnimada inaan isku qaldin sidoo kale magaalowga urbanizationka iyo xadaasada inaan isku qaldin xadaasadu ama modernity-ga waxa af ingiriiska lagu yiraahdo waxa weeyaan isbedel qarniyadii ugu dambeeyay adduunka oo dhan ka dhacay oo Yurub ka dilaacay oo qaab fikirka iyo qaabka dawladda iyo cilaaqaadka bulshada iyo tasawurka wax walba laga haysto ku dhacay inagana inay saameeyay yani xadaasadu ma aha hal fikir ma aha hal madrasada ma aha hal xaaladna ma aha yani waa jawi la galay oo adduunka oo dhan uu qaatay magaalooyinka laakiin ka horba magaalo waa jirtay oo halkan joogay xamarba magaalo ahayd oo 150 magaalo kala geeska ku yaalay oo yani shucuubta geesku deganeed marka magaalo la'aan maynaan ahayn sidoo kalena daahirada reer magaalooyinku lama socon xadaasada labada waxa la oran karaa waxay la socotay islaamka ay la socotay la oran karaa marka waxa isbedelay waxa weeye يعني مجالو دنبو دعي أو أدب مجال اللي وصل تجي لا يمكن نمبر كريم بعديها هي نمبر كريم مجال كشكسو دوانية أو شنو كنت عشان يعفرت بقول كيبا ملها سياحة وده حياتنا كل ينام أي نقولين مدة ربعين هوست كحريقة وحوي مركا ظاهرة مثلا مش أحسن حديثة أو سواليات لشرحية أما لقاه ده حلقة بالهواء مركين يعني محاكرة على magaalada barnay ama magaalada soo galay barada inta badan dadka magaalada soo galay waa waramaan silmoog dadka magaalada sii joogay ma waramaan marka waxa laga soo qaadaa in marka hore dhulka magaalooyin aan jirin oo magaalada aan jirin aan inta ku dhaafno marka labadaaba yani inuu magaalooyin ay sii jireen magaalooyin u jiray laakiin labadaaba way ka duwan tahay xadaasad oo namad cusub oo nolosha oo dhan ah kaasa marka Soomaalida marka ay iskaadeen ay kulmeen ayo waxyaabaha ka dhashay ama yani kulanka ama la kala bartay ama Soomaalidu ka baratay dadkii u yimid iyo nolosha xadaasada ay ka baratay suugaanta xadiiska oo noofarku ugu horeeyo marka noofarku wuxuu ka dhalanayaa saaranigu isla tacliinta casriga marka dugsiyadii xadiiska Ingiriiska iyo Talyaaniga asaaseen oo waliba dugsiyadaasi waxay la falgaleen maxaan ku dhahaa dadka yani af Ingiriisi af Talyaani waxa lagu bartay iyo af Carabi dadku waxay la falgaleen suugaantii afafkaas qorayaashii sheekooyinkii xilligaas socday marka tusaale ahaan waxa sheekooyinka qaarkood oo yani imka rabin inaan sheego iyo waxa la isbarbar dhigaa tusaale ahaan maxaan ku dhahdaa qoraaladii Najib Mahfoud oo kale
sheekooyinkii Najiib Maxfuud oo kale namadka u dhacaysa iyo sheekada si loo warinaya characterkiisu isku yihiin inuu masalan akhriskii sugaanta masaarida ayna soo gaaray intee leeg uu saameyn ku leeyahay novelka Soomaaliga iyo samaysankiisa marka casrigaasi oo ah bilowga qarniga 19aad qarniga 20aad bilowgiisii ayaa nala tashay maxaa ku dhahdaa novelku tusaalhaan yani masalada waxaan ku xasuustay مثلا نور الدين فارح وكله مركا كورهم يرانتيسي يسوي شكله كله فلقله وحويت بدن dadka xasuusiya inuu akhriyo jiray alf leelo leelo kale marka qoryaal badan oo kale oo aan macrifo leenahay ama garasho leenahay waxa ay akhriyo jireen maxaan ku raahdaa suugaantii ku soo bixi jirtay joornaaladii dalka soo gaari jiray marka curashada asaasiga halkaas ay ahayd xilliga marka curashadaas ay dhacday tusaale ahaan marka daraasada halkan ku hayo kale oo sameeyay maxaan ku raahdaa حلمي بالمنيا إلى لا تونسيانا كنت خاصة دراسات كسومالي وحترينا يا شيكوي كي قاعدنا مثلا في إنجليزي قرنا سوماليات آخرين كنت ميدي أفرت ميدي مركا شيكوي كاسونا ما حكم وقتها حني كان سفرين دونا كو إنه كنت عصورين محاكرة على سوغانتي قلبيات إنجليزي يوني إيطالياني لابو إنه كقولي جرين صلاح تكون قرنا سا بحلقة كسو جيران نوع وقولي جرين واقع طبعا شيكوي كان عاد بوحة صح حق دمنا بيتجي دونا مسألة فقرية باهظة فقرية إيو طبقات كلا سريت شيء محاكرة هذا ولا حيسا marka مثلا sheeko kamid waxa ku saabsan tahay character maxaan ku raahdaa shaxaada oo noloshiisa oo dhan shaxaad ku dhisan tahay iyo rafanaya iyo yani si uu soo ka baxaraba iyo mataqaanaa dad ogolaaday shaxaadka oo si joogta ah u shaxaada iyo qorshe kaga bixi lahaa oo ah inuu bank dhaco early 50s-ki oo inuu bank dhaco soo maxaan ku raahdaa soo lacagta ka soo xaro yani shirkadana ka wada sheekay mar laakiin waxay aad u muujinaysaa mas'alada dhaqaalaha ayaa aad uga muuqata xilli dambe sheekooyinka waxa soo galay mas'alada ma aragtay isdhexgalka maxaan ku raahdaa Soomaalida yani isdhexgalka isirka Soomaalida iyo dadka ajnabiga ah maray kan nin mesela guursaday gabar Talyaani ama gabar Talyaani oo nin Soomaali qabo wax sidaas waxaan jeedaa gabar Soomaaliyeed oo nin Talyaani guursataa ma cagsiga Ingiriis soo saas oo kala Faransiis namadkaas ayaa isaguna soo galay marka jiilka haddaan halkan soo dhaafno imika masalada tusaalahaan isdhexgalkaas oo kale waxa ay ka caddahay masalan iyo akhriyay warsame iyo waasuge warsame iyo waasuge oo kale ayaa ka arki kartaa masalada maaragtay labada mas'ale isku xiga ee ah miyiga iyo magaalada iyo masalada guurka ajaanibka labaduba way ku jiraan laakiin waxaan oran karnaa sheekada waxay xana qaaday markii farta la hirgeliyay sheekooyin baa jiray ka horreeyay oo fariiq kala duwanaayo Soomaaliya lagu qori jiray laakiin 7 iyo labadii 7 iyo 3 iyo yani sheekooyin badan 7 iyo soo baxeen list dheer oo sheekooyin 7 iyo 3 soo baxeen oo raaxan iyo kamid yihiin maxaa ku dhahdaa murti iyo madadaalin ahayd mise murti iyo sheeko inay ahayd jaamac shir labadaas uu qoray nin Cabdiqaadir Faarax la yiraahdo isaguna jiray oo iyo Muuse Cumar iyo yani sheekooyin baa soo baxay hal sano 1970 iyo 3 novel badan baa ayaa soo baxay marka sheekada waxay hana qaaday oo hirgashay sheekada Soomaaliya nabad la yaqaan ama joornaalada soo baxda ama buugaag soo baxda oo la daabaco oo midaysan oo la wada akhriyo karo oo farta ka midaysan waxay soo baxday 70 iyo labadii farta wixii hirgelinta farta wixii ka dambeeyay ka hor way jireen marka laba nooc baa jiray in ajnabi lagu qoro aad u badnaa Talyaani lagu qoro Ingiriisi lagu qoro Carabi lagu qoro tusaalahaan Maxamed Daahir Afrax ka garan kartaa inta farta la hirgelin Carabi wax ku qori jiray Maxamed Daahir كفرت اللي هي قريب من الصومالي كقرا وقلابي مثلا إسماعيل هرب وبايو كله يعني كل شيء كان ما ديوت النقد شيء كنت تميز كقريب سي بلوغ اللي إحنا كي محاكر هذا في إنجليزي لو بنو كلام بهايا محل هذا
William Joseph Faarax Siyaad dilaa على يابنا واحد شنو مقع صومالي كريستيانو مسرعية مقعيش كريستيان كاين مقعيسة صومالي قا ويليام فارح سياد بلرا أما جوزيف فارح سياد يو عبد الرحمن محمد وليد مرأي إسماعيل هربي زوباي محمد سعيد توغني يو محمد يوسف محل إسماعيل الهري أحمد شيخ عبدي تذكر صدام محمود شيخ أحمدي تذكر صدام حكوا قولي جيرين شكوين حكوا قولي جيرين إنجليزي ku qori jiray intaan maxaan ku dhahdaa wada sheekooyinka namadkii aan ka soo sheekeynay faqriga iyo magaalada shaxaadka iyo baahida magaalada aad ugu muuqdo darbi jiifka iyo waxyaabahaas aad uga dhex muuqdo ka dhaxari karto markii dambe laakiin waxaa hirgala afartan hirgeliyo sheekooyinkan caan baxay maanafay iyo tanimka hadal hayne warsamay waa suge iyo adeegto iyo rooxaan iyo sheekooyinkaas ayaa hirgalay oo Soomaaliga mainstream noqday qodobka kale su'aasha labaad ee ugu gudbi karno intaas haddaan qodobka curashada uga gudubno qodobka labaad wuxuu noqonayaa ciwaanka waxaanu nidhi sheekafaneedda Soomaalida ama sheekafaneedda Soomaaliyeed laba kalba sida loo dhigo marka haybta sheekada maxaa noqonaya sheekafaneed Soomaaliyeed ma sheekafaneedda ma waxa qeexaya afka sheekada ma afka qeexaya ku qoran tahay oo sheekooyinka Soomaaliga yani sheekooyinka af Ingiriisiga iyo af Carabiga iyo af Talyaaniga iyo af Faransiiska ku qoran ay af Xabashiga iyo imika malaha wax soo bixi doona sheekooyin af Turkiga iyo Swedish ku qoran iyo Dutch iyo sheekooyinkaas Soomaali ma hamiya oo ka baxaya marka waxa afka qeexaya mise haybta qoraha qeexaysa qof kastoo Soomaali wuxuu qoro waa sheeko Soomaaliyeed haddii qof ajnabi ah Soomaali wax ku qoro laakiin waa nadaafaya mise waxa qeexaya maxaan ku raad qisada وهذه قصة صومالية تاعي عدة دوتها قرطة في دولنا على جو قرية وشيكة صومالية طبعا تصدح للنوع بقى وحنوه لنا تصاليا الآن وقيمة طبعا أينوه لنا توجدهم بيسمى مثلا قصة شكوين معنا حجراء قريان فربضن وده شيء ضلال كمثلا إنجليز كوجو بديه ولا إنجليز كتير كوجو بديه deegaanka sheekooyinka qoran ku joogeen ama markay ku noolaayeen ama markay maxaan ku dhahdaa soo mareen traffic soo mareen dhaqankaas uu soo socday ilaa waa dhaweyd soo gaaray masalan waxaan ku sheekada ninka caan baxday la dhahdo la hayooradi ma cabsoonaya la taqulini khayfa aftalaan soo baxday Saamiya Cabdi laga qoray nin Talyaani sheeko gawar Soomaaliyeed oo qoray marka yani waxaan haynaa faylooyin oo qisooyin Soomaaliyeed laakiin cid kala curisay waxaa ka weyn faylka sheekooyin Soomaali qortay oo lagu qoray afaf maxaan ku dhahdaa ajnabi ilaa markii sheekadu bilaabatay aan ka sheekeynay jiilkan imkaan ka warameynay Ismaaciil Hurri iyo jiilkooda kontameeyadii lixdameeyadii ilaa imika jiilka imika nool maxaan ku dhahdaa maxamed maxaan ku dhahdaa tusaale ahaan maxamed Deeri oo kale sheeg Nuruddin isagu meel walba tusaalaha ku galay tusaale koowaad sheekada loo soo qabtay way marka dan Nuruddin ku celceli waayaha inaan ogaamay uga booday dadka aan la sheegin inaan sheegna ayaa rabaa مثلا gabadha Ingiriiska degan maxaa la yiraahdaa magaceedii sheeg Nadiifa Maxamed waxaa jira Maxamed Deeri oo Mareykan degan Carabi wax ku qora Maxamed Daahir maxaan ku raahdaa Cabdiraxmaan Waaberi oo Faransiis wax ku qora Mareykan degan laakiin philosophy ka diyaariyay Paris dadkaas sheekooyinkooda ilaa imika ilaa jiilka hore aan hore u soo sheegay sheekooyinkaasina waa feelkooyin feelka saddexaadna waa sheekooyinka imika Soomaaliga ku qoran yani imika witro beele laakiin markii hore kuwa soo tirinay ugu weynaayeen ugu gowinaayeen ayaa marka saddexdaan noocba qisada ma afka mis qoraaga ana waxaan qabaa afka seeska laakiin qoruhuna waa labo marka iskuis in loo yeelo saddexdaas inaan xindaab la sameynin xiran oo waxyaalaha ka baxa sheekadeena maaha laakiin in mataqaanaa lagu soo koobo qisada Soomaaliga ama qoraha Soomaaliga ama sheekada Soomaaliga ku qoranba waa sheeko Soomaaliyeed kolba markaas su'aalo xagga dambe iska weydiin doono oo inta ay ka turjumayso qisada ay ku xiran tahay intee leeg bay ay u dhowdahay xaaladda dhaqan ama xaaladda thaqaafadeed ee Soomaalida marka tusaale ahaan waxaa jira
intaan mawduucan diyaarinaya waxaan dib ugu noqday maqaal mar hore uu qoray isaguna sheekooyinka alifa xaaji jaabir reer Eritrean maqaalkaasi oo isagoo turjumaan waa dhow sii daayay wuxuu kaga hadlayaa isla sheekadan aan hadalhaynay yani mawduuca wuxuu bixiyay yani sheekadu maxay beeshaa marka lagu beero deegaankayga yani sheeka marka la raro cid kale ama deegaan kale lagu beero marka deegaanka sheekadu soo dhigayo waa caqliga akhristaha ama wacyiga akhristaha marka tusaale ahaan wuxuu ku aadeynayaa ninka ama yani si qabow oo dadban oo yani ixtiraam badan hadalka ka muuqda laakiin aad u xanuun badan ayuu wuxuu u weydiinayaa ninka sheekada qoray saamiye laa taqul inni khaifa يعني كاركترك iyo qisada soo dhacaysa iyo jawiga iyo magaalada xamar ee sheekadu ka dhacaysa badankeeda iyo waxa soo dhan waxay isku bedeleen oo ay qaab cusub u qaateen si ay ugu dhadhabto ama macna ugu samayso maxaa ku dhahdaa akhristaha reer galbeedka wuxuu isagu xiisayn karo wuxuu isagu keeni karo marka intee leeg bad sheekada daacad u tahay intee leeg bad maxaa ku dhahdaa rabto aad ka yeelaysaa oo aad bedelaysaa nuxurkii sheekada iyo karakterkii qofka iyo jawigii maxaa ku dhahdaa qofku macnaha su-aashaas ugu muhiimsan su-aasha ama qoru Soomaali ha ahaado ama yaanu ahaanin oo ajnabi ha ahaado qisadu markay qisa Soomaaliyeed tahay marka in qisa loo kala ahayn oo qofku tajribo kale sheeko ka qoray masalan xaalad kale oo isagu malaawaale ama ka baxsan maxaa ku dhahdaa xaydaabka qisadka localka oo ka qorayo iyadu waa mawduuc kale su'aal ba halka ku jirta intaan ka gudbin waxaan jeclaan inuu gudbo mawduuca ku xiga su'aal ba imanaysa maqaal soo baxana la isweydiiyay haddii maxaan ku dhahdaa dilemada u dhaxaysa maxaan ku dhahdaa haddii qofkii uu yani qorihii sheekada مثلا tusaale sheekada saamiyo kale u gudbiyay oo caalami ka dhigay oo aad loo akhriyo oo talyaani deetan ingiriis loo turjumay deetan afaf kale loogu turjumay uu yani u gudbinayo maxaan ku dhahdaa sheekadina sheeko caalamiya ku noqonayso maxaa cilada ku jirta mushkilada ku jirta waxa weeye imika dowqa dhanasiga yani waxaan diidanahay in laga dhadhamiyo maqaalka iyo hadalkayga meel laga dhadhamiyo inuu qofka ajnabiga sheekada warinaya inay mushkiladu haybtiisa tahay yani mushkilad cusub tahay qof ajnabiga sheekadayna ma warin karo maaha nuxurku waxa weeye dhadhansiga bulshooyinku kala duwan yahay waxa ku cajabiya iyo waxa ku cajabiya qoraha maanta magaalada jooga oo garan kara sheekada ka soconaysa magaalada la xiisa gelinaysa ee macna sameynaysa iyo sheekada iska caadiga ama macna sameynaysa ama khuseenin marka labada kala gudbintooda yani sheekada laga dhigo sheeko ciidan xiisa gelisa waxa ay jarjaraysaa sheekadii asalka yani si aad sheekada reer Muqdisho xiisa gelisa u qorto ama Soomaalida maanta nool soo u fikirtay iyo waxay dhadhansatay waxay xiisaysay iyo waxa dareen ku sameynay iyo waxay qiimayso inaad sheeko ku qorto si aad iyaga ugu iibiso ama aad iyaga ugu suuqayso waxay keenaysaa meesha sheekada ka keentay ama qaabka sheekada u keentay inaad si tartiib soo jarjarto moogta oo karakterka wax ka saarto oo jiwga wax ka saarto ama wax ku darto المشكلة كانت أنا حوالي أروح أكون عيا شكلها تصور لهاي محاكل عيا هاي مركب رأسك ضمت يكون شرتين لوليو العالمية محاكة على مركز بدل وكل محاكة على مشاكل عصبة جبهة لو بقى قاعد سيدو منطقة أضيق مثقف كينياتي جوجل هذا ما يعيش قدام ولا واقع على هيقول على تنشر مكوع العليا وقت وأنا قلدا هذا شو حلي كتاب راد Decolonize the Mind مركب فكر هذا politics of language in African literature سياسة لغة سجارة أفريقيا سجى لفتر كيسو قصة شخصية كنا عليه وحلوه حري وقت تجري وجري إنه مسرحية روايات كوخوري أفكيسي محلي كوكويا كوخوري والله حري وقت حلي كينياتي أهيد مثل حلي كده بيسمى قراني هذا وقت هراء عمري دولت كينيا كمدا وقت متشارك وجري أفكيسي محلي أو كوخوري شيء مركا كنت يراد وفري يعني فكرة آد وفري وموضوع على حرينا أي كجاه اللي بوجا حليها بديوجا أفريقيا كأم الله كا أفريقيا تشيني واحد قرا مدة علينا نقطة كل يوم هراء
dhaqanka cusub ee galeen iyo ingiriiska iyo talyaaniga waxay ku qoreen ma go-aan laakiin korba wax yaro qariib oo lala yaabo ayay ka soo qaataan afkii hore ama dhaqankii hore oo ay maxaan ku rahdaa u gudbiyaan akhristayaashooda cusub si ay yani qaraabada fikradda shaygu waa qariib waa interesting waa wax kugu cusub laakiin at the same time wax normala ma aha yani wax la yaabiso oo saasay sameeyaan dhaqankoodu sidaas yani wax qaraabo abuuraya marka inuu sheekadii ajnabiyoobayso un maaha oo af kala tegayso waa inuu sheekada laftirkeyga luxurkeyga wax iska bedelay qodobka markaa igu xigaa waxa weeyaan markaan ka tegno taasi dadka kala qorayaan dadka soomaalida ee wax ku qora afafka kale yani sheekooyinka ingiriis iyo carabi iyo talyaan iyo afafka kale ku qora iyaga laftirkoogu hal group maaha waxaa kala duwaya khibradda jiilasha yani kuwii mataqaana masalan lixdamaadka ku qoraya kuwa maanta ku qoraya experience-ka waxay igu soo joogaan maa laakiin xaaladday nool yihiin khibradda ay maanta nool yihiin inuu qofku second mataqaana generation immigrant yahay jiilkii labaad ama saddexaad ee qurbaha ku dhashay iyo inuu yahay qof imika yani masalan qofka maraykan tegay sida hurro oo kale lixdankii reerkiisa iyo baadiyii ka yimid magaalo yimid wax bartay tegay maraykan iyo qofka aabihii guuray ama awgii guuray khibradoodu way kala duwan tahay waxaa kaloo kala duwan intee in leeg ba xidhiidh la leeyihiin maxaan ku dhaha mujtamaca maxalliga soomaaliga halkaa jooga iyo ka halkan jooga intee in leeg ba xidhiidh la leeyihin marka waxaan aada u xiiseyn lahaa inkastoonan anigu hore u sameynin masalan sidee barbardhig waxaan isweydiiya haddii barbardhig laysku sameeyo laba qoraa oo midna masalan yurub ku koray england oo kale ku koray oo af ingiriis wax ku qoraa laakiin sheekooyin soomaaliyeed in qoro jecel oo masalan hargeysa wax ka qoraya sheeko hargeysa yani ku saabsan qoraya iyo mid masalan la dhasay tusaale ahaan khaliijkoo kale ku koray oo maxaan ku dhahdaa isagu inuu rabo inuu weriyo sheeko maxalli oo soomaaliyeed weriyo laakiin labada luqadood ay ku qorayeen labadooda khibradoodba ay aada u kala duwayn tayleeg bay awood u leeyihin inay gudbiyaan sheeko authentic ama sheeko aada garan karto oona iska dhex waayey inoo qariib noqonayn layaab noqonayn ama yani tayleeg bay daacad u noqon karaan werinta qisada loo kala yani far kala duwanaanshaynta lagu keenayaa jawiga xaaladda ay ku nool yihiin labada af iyo labada dhaqan haddii yani daraasad la sameyn lahaa haddii uhub qaadanaysa ku tabarucaysa waan ku dhiirigelinayna moogta isbarbar intaajka yani dad wax soo saaray isbarbar dhigo su-aasha ama qodobka kale uga gudbaya waxaa muxuu yahay sooyaalka sheekafaneedda soomaaliga marka sooyaalka waxaa la odhan karaa yani inuu sidii warbixin looga waramo oo na dhahno kow waxaa soo baxday sheekada labo waxaa soo baxday sheekada saddex tana ku xigtay tana liis oo kale la abuuro liisku maanta aada u muhiim u yahay oo ahamiyaddiisu waxa weeye jiil badan oo wax bartay baa jira maanta qoraalkii akhrisku waxa weeye wax aada u fidsan weeye oo jiilka aabayaasha hadaan dib ugu celin ama jiilka aabayaasha yani percentage-ku aada buu dib isugu dhimaya marka jiil aada wax u bartaa jira laakiin waxaa jira kala go' ku dhacay wax soo saarkii aqooneed iyo wax soo saarkii fan ee maxalliga ahaa soomaaliga ahaa iyo dadka waxbarashadooda marka qofka waxaa laga yaaba inuu 30 sheeko 40 sheeko 50 sheeko oo يعني دور لغات أجنبي كهذا ميت كمية أو إنتاج آخرية لكن أنا قرن كذا عيبنا كم لها هدول راديو هل لها راديو الآن بتشتغل لكن فكرته حتى يكون على تقف نقول رجلي أفعالبيلتي إنه هل كرام أرك كرام كل كرام إنه مكتب لها يا لان إنه سكول كيا لان إنه لا كل ما يوم يا مشكلة كتاعته مشكلة كلا كتاعته هذا الناس قفوا قلبه dhaqanka wax ku barto afka wax ku barto dhadhankiisu yeesha marka dad badan waxay mushkilad ka qabaan inaanay dhadhansan sheekadii Soomaaliga marka liis ama in la diiwaan geliyo sheekooyinka liis loo sameeyo la xayisiiyo waa aad u waclaan lahayd yani afafka doonta ku qornaato waxaan ku lahaa waxa doonta marka la soo jiido looga hado sheekooyinka la diiwaan geliyo oo baliis mataqaana la xigsado qofku maxaad ka akhriyaa si la sameeyo waclaan lahayd laakiin waxa uga socdaa sooyaalku liiska ma noqonayo yani baahiba loo qabaa liiska laakiin sooyaalku liiska ma noqonayo sooyaalku wuxuu noqonayaa kow marxaladaha ay ka turjumayaan sheekadu markan oo kale sheekadu waxay u adeegaysaa taariikhda u adeegaysaa marka masalan
bilowgii waxaan ku bilaabay inuu sheekooyinkii ugu horreeyey ay faqriga aad ugu dulsaarayeen faqriga iyo dabaqadda aad ugu dulsaarayeen sheekooyinkii ku xigay waxay aad ugu dulsaarayeen maxaan ku idhaahdaa kilitaliska iyo cadaadiska dowladda iyo sirdoonka iyo jiilkii ka dambeeyey marka marxaladda ay matelayo waxaa kaloo sooyaalka uu noqon doonaa ama noqon karaa himilooyinka ay ka turjumayaan yani dadka sheekada warinaya karakteradu maxay u socdaan himiladooda mar himilo magaalo waa jirta oo dad soo guurayo magaalo soo degeen magaalada la qabsado oo masalan novel iyo magaciisa loogu markaa ina soo hela isku dayayaa igraalaha saddex sheeko uu qoray ninka la yidhaahdo cabdi sheekh oo maraykan PhD-giisa ku qaatay laakiin markii hore halka wax ku bartay laba sheeko gaagaaban iyo novel dheer ayuu iska daba qoray marka waxaa la yidhaahdaa novelka waa inkii sameeyey sheeko gaaban waxaa la bananas ba la idhaha labada sheeke gaagaaban novelkii baa lumiyey midi waxa weeyaan rotten bananas midna waxa weeyaan when hyena laughs markuu waraabuu qoslo novelka when the hyena laughs iyo labada sheekaba hal qisay warinayaan laakiin midba meel buu ka warinayaa midba waxaan su-aalo ku soo qaadanayaa waxaa kaloo ay sheekooyinku warin karaan himilooyinka marxaladda himilooyinka marxalad ka dambeysay waxaa sheekooyinka awoodda saaray tahriibka iyo qaxa iyo yani laba qof oo masalan cilaaqad ka dhaxaysa meel fog baa haddayna tegin sheeko ka mida sheekooyinka ugu dambeeyey oo inkastoo sheeko aad u gaaban ahayd uu ibrahim hoog dhaabacay toddobaadadina soo dhaaftay wuxuu ka warramayaa laba qof oo duruufta dagaalka kala geysay dhowr iyo siddeetankii hargeysa isku caashaqay oo maxaan ku idhaahdaa guur ku qalanay oo la qaxay oo midkood yurub galay oo ku guursaday midkoodna maxaan ku idhaahdaa hargeysa ku hadhay ama deegaankii ku hadhay oo balcad waxaa duca qaxootigii ku guursaday ninkii oo yurub galay oo caruur yeeshay oo xaas yeeshay ay xaas ka dhimanaysaa laakiin beryahan la socdayna gabadhii oo iyaduna caruur yeelatay xaas yeelatay oo odayga ka dhintay ay soo gashay yurub soo gashay marka inuu dib loo bilaabo jacaylkii hargeysa lagaga tegey sideedkii hargeysa lagaga qaxay marxalad ku xigtay waxay awoodda saaraysay sheekadu xaaladdaas qaxa iyo nolosha burburkeeda iyo laba qof oo iswaayey iyo qoys mataqaana kala lumsan iyo xaaladdaasay awoodda saartay marka sooyaalku wuxuu noqon karaa inay mataqaana marxaladda ay ka turjunto waan ku dheeraaday ayaan filayaa hadda waxaan rabaa inaan kusoo xagga dambe kaga soo xidho sheekooyinka hadda marxaladdan soo kordhay ama halka ay marayso marxaladdan tiimka ama afkaarta asaasiga ee soo kordha waxaa ka mid a sheekooyinka falsafiga yani bucdiga falsafiga leh masalan cali jimcaale oo kale sheekadiisa cusub saddexda gal waxay ahayd gaso garoon iyo gasiin oo kale anu weli maan akhriyin laakiin laba bucdi oo muhima ku jira oo dhaqan fikirka la xidhiidha mid metaphysics oo falsafada maa waraa dabiica qof akhriye baan xiganaya ma rabo inaan magaciisa sheego oo muu daabicin mataqaana ra'yigiisa laakiin anaa xigan karaa marka sheekada cali jimcaale wuxuu ninkaas u dhigayo waxay matelaysaa maxaan ku dhahdaa dhowr shay kow wuxuu isku dayayaa cali jimcaale inuu ka guuro namadkii ama qaabkii stylekii novelka traditionalka ahaa Europeanka yani kan iminkaan ka warramayay la wada hiigsanayo oo lagu saamoobay oo sheekooyinkan oo dhan abuuray oo ama dhinaca carabta ay naga soo galo Najib Mahfoud iyo Alf Leyla kasta Alf Leyla namad ka horreeyay ama dhinaca kale Talyaaniga Ingiriiska ay naga soo galo namadka inuu ka guuro style cusub sheekada u wariyo ayuu sheegaya labo sheekada mubaashirka ahayda mashaacirta
iyo qofka dareenkiisa iyo xaalad ka warramaysay ay dhaafto oo wax qofka dhaafsiisan oo metaphysics ama mawra dabiico oo falsafi oo jiritaanka ilaahay iyo waxaas la xiriira ama asaadirta taasiisiga la xiriira inuu ka warramo isku dayayo saddex waa mas'ale kale oo daraasaadka Soomaalida lagu darso oo la yiraahdo maxaan ku raahdaa mantiqeynta ama maxaan ku raahdaa yani in la naqdiyo qaabka loo akhriyay Soomaalida qarniga xillibaadka 70-aadka ahayna Soomaalidu hal mid oo isku siman oo waxba ku kala duwanayna taas oo keentay inuu afka iyo dhaqanka wax badan laga sameeyay lahjadaha inuu duro ama laga guuro ama xataa afafka Soomaaliga wax kaga duwanaya mesela doodii waagii dhood ka dhacday af Braawiga inuu laga soo qaaday inaan jirin oo kale ama macnaheedu muhiim ahayn ama aan Soomaaliga wax kaga duwanayn Braawiga doodaas cagsigeeda naqdigeeda oo akaademiyiintu jeedin jireen dabaqadeedii oo kale ay sheekada noqonaysaa oo lahjad aad u maxalliya yani aad loo kala oo yani deegaanka aad ugu sii taxtagaysa ayuu u qorayaa qof kasta oo aan lahjada u lahayn maxaan ku raahdaa aqoon fiican wuxuu u baahanayaa in lahjada barto ama loo fasiro mud marka sheekooyinka xambaarsan fikirka iyo falsafada waa soo kordheen waxaa tusaale noqon kara sheeko maxamed xasan waa dhowii daabacay oo la yiraahdo Diria Marcos ama Diria Marcos dabalkii jiraalka yani laftigeega walwalka jiritaanka iyo ilaahay caabudaad iyo aaminaad iyo marka xaaladii waagii hore abuuratay teemkii faqriga iyo baahida iyo shaxaadka laga soo guuray teemkii maxaan ku raadin taqadumiyada iyo iskuulsiga isdhexgalka iyo mesela manafaayo kale inuu dad kala yani kala khalfiyadooda iskuulsadaan iyo culayska qoysaska ay ku haysa iyo tadawucii ahaa inuu la sameeyahay isku mataqaan laga guuleysan doona caadooyinka iyo taqaanida ay waa laga soo gudbay namadkii kale iyo baaba iyo qaxa iyo iswaaga iyo waxa ahaa maxaan ku dhahdaa iyo dictatoriyada waxa ka horreeyay laga soo gudbay namadkii tahriibka iyo masaa'ibta ka horreeyay laga soo gudbay iminka namadka qurbaha wax badan ka sheegi maayo laakiin namad iminka waxa soo kordhay buucdi falsafi ayaa la sheekado oo waxaan ku dhahdaa iyadoo laga yaabo inuu themeski hore ama afkaartii hore oo dhan gudaha ku shirata laakiin qayb dimension cusub oo dheer waxaa ka mid ah mawduucyada soo kordhay laga hadlo ideolojiyadaha laga hadlo ama wax laga qoro ama laga sheekeeyo mesela jannadoon oo kale jihadismka iyo yani al-shabaab iyo radicalizationka iyo processka uu sawiro marka yani anusaan qabo mawduucaasi sooyaalka sheekadu wuxuu noqonayaa afkaarta ay gudbinaysa iyo tadallucaadka ay gudbinaysa yani rajooyinka ay kamid ay matalayso iyo qadiyadaha ay ka hadlayso dabcanna qadiyadahana ka hadlayno si akademiya loo daraasayaa sheekada Soomaaliga looga daraasayaa halkan waxaan ku hayaa daraasad riwaayadkeedu yahay مثلا waxaa jirta oral literature yani maxaa loo jiray Soomaalida bulsho afeed mise bulsho hadal baa loo jiray kasoo aanu ma qabo fikirkaas yani waa mas'ale aad u xaadisa weeye daraasaddan waxay daraasanaysaa goormay sheekada afeed u noqotaa literature ama sheeko qoran ama novel isku bedeshaa sababta folklore sidoo sheeko daraasadka tajribada Soomaalida daraasanaysaa جامعات سعودية كان اللي بضع بعض في الأيام ريفرنس كده جامعة مهني دراسة ده كله يعني مهمة وحلقوا سمي نيوكاسل وحلقوا سمي دراسة ده واحد درس يسا مجا ديجان كسيدة شكله متشو مركب واحد شعور قاعد لسه متشو يعني نارتي فيس كان نخدين يسا مركب مسوق قومي سواء حكم هذا مثلا إنه مجال الله صوره as the world's capital city of all things gone wrong not عاصمتي adduunka wax kastoo qaldamay oo kale yani dadka saxafiyiinta ama ajnabiga magaalada kale imaada ama si guud Soomaaliya narrative ka duulaan meel wax walba qaldameen مثلا ciwaan badan ka saa the most dangerous place in the world oo kale I don't know xamar yimid ka cabsi badan gaangiska New York
وقت midkaad mugayn kartaa dad qof shacab oo taarget sidahayn oo iska faqiiro xafadiisa degan habeenka labada midkaad mugayn kartaa waa waqti waa mas'ala relative laakiin yani daraasada ku sameynaysa geographically magaalada as a character loo qaato oo la dirso marka waxyaabaha aan ku dhiirigelinayo dadka danaynayana masala tan oo kale waxaa lagu darsayaa narrative sida noofarka Soomaaliga looga dhex arki karo tan waxaa lagu darsayaa inuu si gooniya Soomaalinimada iyo Soomaali noofarka waa si kala cid u baahan daraasaadkaas oo kale cilmiga waxaa iyaga dadka ku yani takhasuskooda literature iyo maxaan ku dhahdaa comparative literature ayaa samayn kara laakiin inagu akhristayaasha guud waxaan dhaxal ahaan ama sooyaal uga qaadan karnaa sheekada marxaladaha ay matalayso iyo toddobacaadka ama rajooyinka ay matalayso iyo sooyaalka ay tabinayso dabcan yani absolute maaha oo sheeko kastaaba sheekada mesela sideetan gaarkiisa laga qorayo ama burco 70 laga qorayo ama xamar 50 laga qorayo yani sidii magaaladu ahayd maaha qofkaasi tajribadii magaalada ku galayso iyo tuu ka yaqaan qof intuu yaqaan wariya moogta tuu ka yaqaan wariya ama character tuu ka yaqaan laakiin waxaa jira waxaan ka dhex bixi karin qofku oo ah duruuf guud oo lagu wada nool yahay waan dheeriyo filaya haddaan soo koobo waxaan su'aal kale ayaan rabay inaan u gudbo oo ah sheeka Soomaaliga caalamnimada iyo maxallinimada sheekada Soomaaligu waxay ku nooshahay isdiido haddii af Soomaali lagu qoro say u badan tahay waxay xaydaab bay yeelanaysaa deetana adduunka kala gaari mayso oo yani mesela qorayaal maxaan ku dhahdaa haddii af Ingiriisi ama af Carabi ama af Talyaani yani afaf dibadda lagu qorana way caalamiyoobaysaa oo maxaan ku dhahdaa laakiin afkii Soomaaliga wuxuu tegi doonaa sheekadii yani haddii afkaan lagu shaqeyno uu baabaa afku inta la isticmaalo marka qofka yani sheekayahanka Soomaaliga waxaa hortaala mucdiladaas mucdilada waxaa si yani istiidada waxaa si toos oo adiga isku barbar dhigi kartaa مثلا محمد داهر فرح ينودي فرح الله قرأ شو تقريبا شو شيله شو دول هذا يعني واحد كده دلبي شو مرحلة صوب حي بدلوا حقاتين إنجليز وحكوا قرأ بدلوا حقاتين وحي شو جانا سومالي قرأ بدي كده مركب محمد داهر سؤال عام كل حي شيء سؤال آخر صار يعني صارت كدافتي أي وحي هاي مؤسس صوت يعني جيل مؤسسين سياس ليga sheekada ee lagu daydo ee laga daba saameyn wuxuu ku yeesho xalliyo wuxuu sheeko Soomaali ka soo yani isaga kaligi ma yani ragii lolodka ah ama sheekooyinkii xilliga la cambax ayaan daran iyo aqoon daro nacab jacayl iyo rooxaan iyo wasuuqiyo warsameeyo sheekooyinkaas waxa dhigan siyaas dhig bay sameeyeen afkana aad buu anfacay suugaanta Soomaaliga aad buu anfacay yani waxaan cimriga Soomaaliga loo doon bay sameeyeen لكن عكس شيء كألفين يعني ما نفع واحد نقطة شيء محلية شيء كسومالي متقان ورسميه وسوي شيء سومالي متقان محل روحان وشيء كسومالي متقان يعني ممكن بين أنا أفكر عن باب نقول أفكر أنت آخرين ساكوب تجمع دبايا مركا دايما ما ضاسي محل كل هذا كل إحنا هل كعكس لو هذا يعني ذلك كريتيك نقبية سويانته يكون هذا يعني دي فرح وكذا إنه كقوستي محل النبي كقوستي حتى متلاد وكسمينيا Soomaalida ku sameynaya ay tahay matalan aad loo meeray aad u meeratay isku bedeshay marka su'aashaas oo kale loo su'aal asaasi oo hortaala suugayahanka sheekada qoray ee Soomaaliga doorashadeeduna dabcan waxa leedahay xal wada kara yani dhaxal bay leedahay qofka qoraaga iyo dhaxalkiisu oo dhanba saameynaya marka qofku wuxuu kala dooranayaa Soomaalida ku koobnaataa si adduunka uma baxdaa marka oo soo shaqeysata caalami waxa noqotaa mar walba loo sharaxo maxaa qara Nobel waxa loo jeedaa literature mar walba loo sharaxo waxaan rabaa inaan ku soo koobo mar horena waa soo koobaya wali ma soo koobin
su-aal ugu dambeysay oo la isoo weydiiyey markaan mawduuca diyaarinayna ama laygula taliyayna ku daro oo marka hore aan ku fikirin marka su-aashaasaan kusoo xidhaya maxaan ku dhahdaa waxay u dhacaysaa fikraddu maxay u baahan tahay ama su-aasha ugu dambaysa maxay tabaysaa sheekada ama sheekafaneedda soomaaliga iyo sheekafaneedda iyo waaqaca mujtamaca labadaas inaan isku qaano ana waxaan isleeyahay masalada waaqaca sheekada waxay kala mid tahay sugaanta kale oo waxay samaysaa qumanaanta qofka yani qofka sida u arko saxda iyo qaladka qayb bay ka tahay sugaantu qiyamka ay sugaantu faafiso ama ay u doodo ama ay difaacdo aad baani masalan tusaale fudud aad u fiican waxaa ka mid a waxaan usoo qaadan karnaa sugaantii cilmi buudhari ise u bedeshay qumanaanta jacaylka yani jacaylka sida loo arkaa sida loo matalaa sida looga hadlaa sidee loo cabiraa sidee loo sheegtaa xaaladihiisa yani sugaanta cilmi hore yani waa sidii hijriyada ka hor iyo kadib iyo dhalashada ciise ka hor iyo kadib iyo cilmi ka hor iyo kadib way moogta marka qumanaantaasi qayb ka tahay marka sugaantu waaqaca saameyntaasi kule yani waaqaca ka shidaal qaadanaysaa oo xaalado jira ayay ka turjumaysaa laakiin sidoo kale waxay abuureysaa maxaa loola jira filashooyinka maxay ahayd inay jiraan imika waxaa la jira laakiin maxay ahayd marka qof walba masalan wuxuu leeyahay waaqic uu ku nool yahay hamina uu leeyahay maxaan ku dhahay hiigsina uu leeyahay oo sidii ninkii aan kasoo warramaynay karakterkii mataqaana magaalada inuu baahida baadiyaha iyo uu kaga meedho magaalada u imanayay marka taasi waxa weeye xiriir ka dhexeeya waaqaca iyo sheekada waaqaca ka dab qaadataa laakiin waxaa kale bixisaa narratives maxaan ku dhahdaa berri maxay ku wacnaan lahayd ay abuurtaa waxaa halkaa maxaan ku dhahdaa iisoo harhaya maxay u baahan tahay sheekada ama maxay tegaysaa qodobka nimika soo sheegna ugu horreeya waxay tegaysaa turjumaadda sheekada soomaaliga waa in la bixiyo waa la turjumo waa in afafka kale la geeyo yani inaan soo turjuno baahidaan u qabno baahi lamidaan u qabno inaan sugaanteena turjuno masalan sugaanada la turjumay qaarkood u hirgaleen suuqa si fiican u galeen adduunka gabay baa laakiin la turjumay inta badan aan intaan ogahay maxaan ku dhahay raawi iyo gaariye iyo xasan sheekh muume iyo sugaan la turjumo fiican baa jirta marka taatu leeg in la turjumo sheekooyinka waxaan ka warhayaa adeegto cariir baa laga dhigay waana si fiican ugu iibsatay qaahiro oo kale intaan information ku hayo si fiican ugu iibsatay marka sheekooyinka wacana soomaaliga banaanka loo saaro oo taas waxay u taraysaa sugaanta iyo magaca sugaanta soomaaliga iyo qiimeynta la siinayo iyo sida loo ixtiraamka la siinayo laba laakiin waxaa ka muhiimsan contributionka waxay ku darsanaysaa soomaalidu adabka caalamka sugaanta adduunka waxay ku darsanaysaa maxay tahay haddaan inagu isku warrano inagu waan iska dharagsanahay mogta waa intaynigu waan u baahannahay sheekooyin dheeriya laakiin waxaan u baahanay in dadkana waxaan hayna la wadaagno oo dabcan anaan is leeyahay haddii sheekooyinkeenu si ay qoran yihiin loo turjumo waxay dhadhan gooniya samayn doonaan leanno waxaa afka iyo dhaqanka iyo koobnida iyo khibradda soomaaliga ee maxaan ku dhahdaa 50 sano ama 60 sano la soo maray sheekada ka muuqataa wax la dunida kale marka loo barbar dhigo kale la yaraysan karo maahan waxaa kale oo ay tabaysaa masalada iminkaan kusoo gabagabeynay ahayd halkaa iminka sheekadu maraysa oo ah in la falsafadeeyo sheekada marka waxaan ku talin lahaa inuu sheekayahanku inuu u dhaqmo ama isku isdhigo roolka ama booska filosoofka oo kale marka inaad sheekada qorto xirfad u leedahay inaad sheekada qorto waxaa maanta waxa yani waa la garan karaa inuu boqolaal qof oo xirfad u leeyahay sheeko qoraan laakiin maanta يعني تحدي عرنت ما توحد هاي شركة ميزان تيلك بطريقة شركة عمق ذي تيلك شركة وقت تيلك تكون بحسك شركة دراسية يعني شركة سلا قنت كله دراسية نوقف وقت بحية وبحاول شركة سو وماشى مثلا كاركترز كل ولا هاي كسون ولا هذا وكسور هذا يعني مثلا هذا ما توريني سقف محل ولا هذا استشفين كاركتر كسور شغلة قف بديو كسور بشيء وسكري وجهاد اللي عشان كبيرة أو محمد وقت جلنين أدبيات كمحمد ضدكاسي إيو سيونيو اللي هي يسوي فكران إيو حي هذا وقت جلن شكله وده تام يعني نطالب بخدعين لكن
maxaan ku dhahaa xaggaasi dadaalka la gelinayo mas-uuliyadda la iska saarayo inuu xaaladda laga turjumayo la darso iyo qiimaha loo yeelayo fikradda sheekadu gudbinaysa oo ah maxaan ku dhahaa taasi waxay qasbaysaa markaa in awoodda la saaro akhriska falsafiga awoodda la saaro waxaa kaloo tabaysaa sheekadu naaqid adabiya yani literature critique bay soomaaliya ay tabaysaa naqdin sugaaneed ayay tabaysaa waxaa kusoo gabagabeynayaa ugu dambeyntii waxaan tabayaa anigu oo sheekada waxay tabaysa marka laga yimaado anigu waxaan tabayaa in sheekadu weli sheekada soomaaliyeed aan xanuunka qofka soomaaliga dareemaya aanay weli ka turjumin aanay weli yani si kale haddaan u dhigo inay nagu filan weli nagama yoohin inay nagu filan weli nagama yoohin laba shay baa jira tajribada taariikhiga lasoo maro taariikhdu taarikhyaanku faagtiis kula dhacdooyin kula la dhaqmaa waxaasaa dhacay sababtaasoo dhaceen xilligaasoo dhaceen accuracy-ga sheekadoo dareenkay welisay asaan kusoo bilow marka sheekada soomaaliga weli dareenka tajribooyinkan soo marnay maxaan ku dhahdaa 60 ama 70 sano ugu dambeysay aan soo marnay kala xanuunka darnaa waxa ku midba dhinac bay xanuunkeedu ka jiray oo waxaa jiray masalan waxyaabaha aanan inta badan awoodda la saarin har qariyo waxaa ka mid ah 10 sano 80 ilaa 90 faqri ba-an baa jiray dalka yani faqri qeyr caadi ah jiray sicir bar qeyr طبيعي ah jiray burbur yani dibid dhaqaale oo maxaan ku dhahdaa yani si aan u sifeeyo aan garan karin markaad imika dib u daraysto ama aqaamta dib u eegta ayaa jirta oo nolosha dadka ku adkaatay waxaasoo kale weli lama yani haddii taariikhana loo wariyo leeraa wax qalalsan moogta oo maxaan ku dhahdaa مثلا waxa laga soo bilaabay IMF-ta iyo restructuring-kii hore lagu sameeyay Soomaaliya iyo sarifka lacagta la sii daayo waxyaabahaas laakiin dareenka dadka ay u lahayd saameynta dadka ku lahayd nolosha si u saameysay xaaladda bulshada ay abuurtay waxaas marka aan waxaan tabayaa oo weli tabayaa inaanay sheekadu inay nagu filan aanay inaga awhin bulshadu way booga badan tahay iminka nin saaxiibkayga lahaa shalay ninba beel walba ka mid ah Soomaalidu waxay leedahay qof haddaad taabato ay ka wada xanaaqayaan moogta cagsiga yani qofkaas marka laga yimaado waxaa kale leedahay dadku waxay leeyihiin tajaarib kala duwan moogta hal tajribo lagu soo wada maray masalan dad baa xanuunkii dowladda ku dhacay dadna xanuunkii jabhadaha ku dhacay dad xanuunkii al-shabaabba ku dhacay dadna xanuunkii reeraha iyo mataqaana isdileega ku dhacay dad way qaxeen dad ninba bulshada inba meel bay ka xanuunsantay moogta marka inoo yani anaf sheeko la wariyo ama mawaadiic la wariyo way jiraan dad baa jeerar ku dhintay oo 40 sano yani waa dhawaa Facebook la wareejinayay nin 77 la xiray Ethiopia oo waa dhawayduun Abiy Ahmed Kibdel soo daayay oo la raadinayay yoma kuma isaguna yani garanay cid waa waa taariikhda markaa taariikhda gudaha ay tahay sheekadu inay wariso waa taariikhda waxa kale oo islaahay mawaadiicda sheegayno sheekadu ka weli ka gaabinayso siyaasadda marka la geliyo laga wada hadlayo ama yani waxa si loo maareyn lahaa wala isdhowrayaa moogtahay oo maaha siyaasaddu inay faqfaqdo taariikhda hadday faqfaqdo waxay sii abuuraysaa maxaan ku mashaakil cusub cagsiga siyaasaddu waxay u socotaa wixii hore oo dhan la aamusiiyo ama ugu yaraan yani laga maydho wax cusub la bilaabo marka sheekadu inay ka xoreyso tajribada ama xanuunka la soo maray siyaasadda ka xoreyso oo ay wariso maxaan ku dhahdaa mucaanaadka iyo dhibka qofka yani qof ahaan u soo maray maanta intaasaan kusoo gabagabeynayaa waxaan isleeyahay hordhac waad samayseen wixii maxaan ku waqti noo haray tiimka inoo sheegi doonaa iyo wixii dadka jooga ku darayaan aan ka tegey ama aan ka eegin iyo wixii mataqaanaa iska weydiinaynaba waa war inoo dhexeeya wey warkeligii yaani maaha sakraaga aad u mahadsan yahay ustaad Cabdullaahi Raage waxaan rabaa ustaad Cabdullaahi Raage aad u mahadsan yahay waxaan rabaa su'aalaha qaybtiisii soo gaarnay oo qaybtii ugu dambeysay ah marka qofka raba inuu su'aal weydiiyo farta ha taagto faalla cidii wax ku daraysa iyo su'aalahaba
wada dejinay laakiin maqrib baa noo bismillah waxa ugu horeeyay tabiic baa ugu horeeyay laba su'aalood su'aasha koowaad waxa ahayd labada su'aalood oo inoo weydiiyay tabiic midda hore turjumaadda la xiriirda waxaan ku darayaa su'aashii kale ee gabadhii turjumaadda igala hadashay waxay ahayd soo maaha ilhaam turjumaadda iyo su'aasha qarinimada afka hooyo hodan iyo hodan maaha afka hooyo waa hodan maaha waqti intaana turjumaadda u gelin waa hodan oo noloshii afku waa noloshiisa waqti waa nolosha dadkiisa afku waa cabiraad weey waxa dadku waxay isticmaalaan bay ka yeeriyo bixiyaan waxa ay la dhaqmaanna way u ereey bixiyaan in waxaad u fiirsataa eriga gar tusaalahan meel kale ku soo maraa laga yaabaa gar inta jeer ee la adeegsaday garsoor iyo garyaqaan iyo maxaan ku raahdaa garsoorid iyo sheeg garsoorayaal iyo maxaan garyaqaan maxaan sheeg erigii kale ما قرت ما يعني ما waxaan u jeedaa waxa la xiriira garta gartii yani la fariisanay 10 jeer baa ayaa markii magaalada liimtay mise baadiya garyaqaan ma jirin waqti lawyer la soo qabto garyaqaan garsoorana ma jirin laakiin yani erigii waa la waxaan u jeedaa waa la bixaamistay waqti marka yani erida saa marka koorta afku waa wuxuu deegaanka yani dadkaas ay ku nool yihiin iyo afkaarta la dhaqmaan buu ay ka turjumaa afkaartaana waa ka dhargaya hodan maaha oo magaalooyin badan Soomaaliga maxaan ku raahdaa imika kama shaqeynaa oo intuu farta qorantan sheegay kama af magaalo oo baadiya aad ugu dirsanay ama afkii Soomaaliga baadiyaha aad loo diiwaan geliyay waqti afkii Soomaaliga baadiyaha aad loo diiwaan geliyay midda la kale labaad ee jirta turjumada la xiriirta marka laga yimaado hodannimadaas waxa weeye turjumada waxa la xiriirda sideen ugu helnaa loogu helaa erayo wixii la turjumayo iyo maxaan ku raahdaa afkii badanaya oo fasiraad dheer u baahan yahay buugiya ama qoraalku badanaya ana horta tijaabo yar oo fudud baan sameeyay waxaan isku eegaa qoraalkan kasoo turjumeyntu ahaa iyo kan turjumeyntu noqday Soomaaliga way yar tahay inta isdhaafaan aan page laba page waxaan ku raahdaa ii sheeg wax noocaas in isdhaafaan meelaha hadalku dheeraado iyo meelo u kaabtaan oo jirta yani meelo afkaan ka soo turjumaysa wax badan lagu qoray waa Soomaaliga labo yani sadar baad eri ku turjumi kartaa Soomaaliya oo dhacday yani tijaabo ku soo aragnay cagsigana eri baad Soomaaliga sadar ku turjumi kartaa marka iyadu mushkilad ma laha buugintu doonaha gaaro waa inuu buxurkii gudbisay laakiin mushkiladda dheeraanta qoraalka Soomaaliga turjumaadda waxa ka timaada inta badan waxa ka timaada qofku inaanu Soomaaliga ka dirigsanin يعني عقلي سنان سومالي كل شقين حنا بكذا أنت سويانته سومالي يا أفكار سومالي يعني لا دقنته الشكل سومالي آخر سؤال محاكور هذا يعني إيريك سومالي ومسكحة كبر هذا يكسيس وحكوف فضلاني أنت يعني فسيري كرتو أما فرفران كرتي إيريا مركب مالك جاهم بات كسوق قام كرتا هذا لكن القرآن كور ديرانه ولي واحد كور دمان وحق يعني عقلي هو حق قلم وقت وصل بوشك Soomaali badan haduu galo waan hubaayro Soomaali badan ka soo baxayo oo ka fiican waliba marka qaar ki ka turjumaadii mushkilad ma laha eri raadintana mushkilad waxa dhacda mar waxa weeyaan inuu eri bixintani aanay Soomaali lahayn oo in imika la abuuro mooyaane waqti in imika tiraahdo waxa loo yaqaan marka su'aashii saddexaad waxaan ku darayaa inuu weydiiyay maxaan ku raahdaa sheekada ku saabsan iyo sheeka faneeda waxaan weydiiyay Cabdiraxmaan maxaan u lahaa bilowgii sheeko ayaan door biday lahaa in la isticmaalo inta sheeko faneed la isticmaalayo yani waa ra'yigayga cidda sheeko faneed u bixisana ma garanayo waan u hirgalay yani waan kayga ka hirgalay ka muhiimsan laakiin waxaan u jeedaa kuma qasbanin inaad ma taqaan ag مثلا sheeka qorta erigu 100 macno qaadi kara wuxuu qaadi karaa sheekadan imka wado oo sheekeynaya wuxuu qaadi karaa haasawaha oo sheehaylihi hablaabo sheekaystaan wuxuu qaadi karaa noofalka waxana waa sheeko gaaban buu qaadi karaa yani kolba erigu meesha uu joogo ayuu macna ku qaadi karaa marka
إنه إري وبرح تران هالموضوع أما إري أنا وحكي له أقول وعرفت يعني رياضة قارقة في إنجليز واحد على الذي لحد معنا الذي استيتر معناه يشان مركا waxa muhiim san eriga in la isla fahmo waxa loo jeedo taas ka muhiim marka waxaan diidanaano iskalifaada yani sheekafaneed inta la oranayso oo mataqaana artistic story halka maxaa ku gaarsiinay adoo sheekays ka maxaad u jeedaa noofalka u jeedaa oo la baranaya qisada dabcadan cusub maanafay dush waxa laga qoray qiso oo soo garanaya masraxa Soomaaliga riwaayad baa loo bartay روايات مسرح ما روايتين تي marka la toocinay dadka laga qoslinayo riwaayadaha ma riwaayad waxa la yiraahdo jiro adab oo suugaan oo masraxa jiro oo la barto oo masraxa la yiraahdo riwaayad tan kale kaftanka iyo hebelu ma riwaayadeenayo iska riwaayadeynaya waa macna kale oo ay leedahay marka macnayaashu way badan karaan maxaana ka jawaabin مسألة شكوين كي هروح وبطنا باتري شكوين تعالى يعني سكا فضل وارون ويجيك مثلا لكن حل جاكم بكورين يمكن مو فرصة وحبضنا صباحا يعني هذا كوبن باتري يعني فكرة دي قدنا هذا كوبن تاعو محاكو هذا يعني تعالى لفتر كيس في عنو قدبني لبا يعني لبا فكرة ضوضو انت بدن شكوين كي يرير صوب قلت جرا ومسوق ما سوقي يتعال قف wax musuq suuqaya iyo qof wax jecel laakiin ismalihi yani xilliga kuma xirna xilliga dawladda iyo xilligan imika way soo baxay sheekooyinka مثلا sagaashamaadkii baa aad u hirgaleen qaarkood iyo 2000 bilood waxa ku xiran tahay wixii uu fara badan yahay intaajkii aan soo ilaahay mahaduu u badan yahay kiisa wacani kiisa xunba kuwan aan tusaaleysanay markaan mawduucyada ka hadlayay وشيكوين ضد متقانا يعني على شو قرين محمد ظاهر باقري نورجي فرح باقري هربو بابا قري اسماعيل احمد شيخ عبد الشيخ باقري موقع افكار موضوعيا كان بيمد يقدر كتبينه لكن dadka waxa jira inay ku barbartaan dad baa laga yaabaa shirkadoodii koowaadkoodii labaad in iska maalayaan laakiin dib marka waqtigii dawladda midna maalayaan kuma xibeen waxa labada la oran karaa suugayahanada wax soo saarkoodu fiicnaa ama cusla dawladdu way eridi ka qaxan yani khooda qaxday moogta maxamed dahru baxay oo jifaar ku baxay markii cid joogtay way yareen yani maxamed oo kale maanafay markay soo baxday suuqa gashay sheekada labada ku xigtay iyadoo la daabacay oo aan wali suuqa la gelin ayaa go'aan laga qaatay wixii la daabacay dhan waa la gubay meel la mariyay haba garan isaguna uu baxsad budal kaga baxay dabcadii labaad ee maanafay nafaas inuu gudeysay yani saas lagu wada baxay marka culays ku haystay suugayahan laakiin labada jeer ba labada xilliba wax macna leh waa la qoray intaas ku dhigma filay waxba kama tagin su'aasha xaj jaabir baa dhima Soomaa su'aasha xaj jaabir markaan maqaalka turjumayna waa la weydiiyay moogta yani sidaa uu dhigo dhan mu foga in la yiraahdo oo isagu wuxuu leeyahay sheekadii saamiya yani si u dhadhansada aqliga ama yani qofka reer galbeedkii waa la dhalin rogay walaashan siinaba akhridana waxa la saa uma si rogna su'aal kale waxa imanaysa hadii uu ku eedeynayo ninka Talyaani maadaama aanad wixii kala garanay waxba qalqalday adiga laftarkaagu Eritrean baa too dilo adad qori lahayd inta ka badan qalqaldi lahayd laakiin labaduba yani su'aashan hore waa ka jawaabna tan dhammaad ka jawaablaysa marka la yani ninka qoraaga jinsiyadiisa mushkiladu ma inuu min Talyaani yahay mushkiladu ma waa waciga wax ku qorayo way sheekada kale jaabirna qiimaynta lagu kala doonaan kara oo yani inuu xataa Soomaali taa kuma xidhna moogta inuu maxaan ku raahdo sheekada akhriday waa qiimayn karta أنا وحنسلاها مثلا قصة كلام عيا فرصة شعلا كلام استعمالها شيء عن وحوش ذي عن وجود بنكرم هرجيسة وح مرتهم بكدعي وادو ينو نشوف أنا يعني أرد بكدعي دلني بكقيب كشدة أجنبي دلكي بدك كقيب كلي مجال أردن بالحري تاسو كيلومتر بالفوري يعني قصة دعوة اسمها مرتهم بدعوة ولا ترتمي أو نبى مركا واقع حكوا عصبات جورنال وين متقنع مريكان إنجليز كصباحا عاد هو عاصب وخلاص وركا دو هو وين أبي صور قاضوها وأنا نينا أقول شكلنا نكيو أردتو كلهاي صورته سواء قاضي يفتوين بعرجيسة كده عملتين تاسو أردي هنا أجنبيين تاسو أردي هنا الله كلاين تاسو أردي هنا دولة درسكا أي عرجيسة أرد كي قريب كلام مركو دري سؤال بلويدي يعني نك اللي تركوا نيروبي شو دقن
wuxuu yidhi gabdho xijaaban ku jireen literal yani su'aal kale maahan maxaad uga jeedaa haddaanay gabdho xijaaban ku jirin interesting maaha sheekadan marka waqti yani space ma helin yani isagu wuxuu ka hadlay nin jiriyad ba hortaala space buu haystaa maxaa interesting daabici kartaa maxaa interesting aan daabici karin marka ninka jiriyadda haystaa wuxuu garanayaa siduu sheekada u warinayo inuu nolol caadi hargeysa ka socoto macna ma laha waxa macna leh inuu wax qeyr caadi ka socoto mesela yani xijaabka operation iyo gabdhaha lagu cadaadiyaa iyo sheekada waa la warin karaa oo habla xanaaqsan oo xijaab diidan dhaqanka dumarka cadaadinaya oo yaacaya aroortii hargeysa ordaya warkaasi front page ku tagaya oo dadka akhrisanaya Mareykan iyo Ingiriis jooga macnuhu sameynaya laakiin rag ama dumar waxay doonaan dad noloshooda caadiga xamar iyo hargeysa iyo mataqaana Kismaayo iska wata dadka dhadhan ma laha taas soo ka socda marka si dadka dhadhan loogu yeelo sheekada saamiye maxaa lagu sameynaa waxa lagu sameynaa mesela xalorna xamar sheekada yani mesela meelaha tooska u muuqato habeenimo ay gabadh iyo saaxiibkeed xamar oo maxkamadaha islaamiga ka taliyaan ku ordaan موقت أنا واختراع موقته يعني هذا ربطين وعليس ما قبل أرض كهايستا تراهضو أو محمر نكور رميفا وارون لكن سيدو يهبدو شيء كرتا أو أنا مثلا أنا حلية قار كل شيء أمين شارع عورده مثلا مثلا يقولي كل حردين تاسو بقولا كنا وريق يعني سيبا وفسر كرتا وترجمة كرتا لكن إسقى أخرستي سواء حدا نص ما ينايا ماشان يمين إسلامينا كتاليا قبل نأرض بكل ريونسا conflict كله حياة مركنا كنكا gabadha iyo caadooyinka iyo waxaas oo inaga yani ama aan dhici karin mesela inoo maxaan ku raahdaa yani habeen ammaankaaba marka qaar xanibiyo Soomaa marka mesela ciladaha kale sheekada ku jiray waxa kamid ahaa reeraha sidoo u fasirayeen yani garashalaami ka ahaa laakiin islaafka mesela maxkamaduuna reehbel oo dawladuna reehbel oo mataqaanad ilbaxa horumarsan wax noocaas ah marka gaabiska badan xagaas ka imanaya qof kasta oo adeeg qabanaya cid adeeg ugu gudbin ku xisaabtamaya marka inaga laftigeena dad bay noo warama social media ku jira wariyaal baa jira Soomaa warbay soo qoraan wararna ma soo qoraan waxas macluumaad ku qoranaya wuxuu ku xisaabtamaya waxa inagu u filayeen danaynayna aan xamar halkan waxba ka dhacay in siyaasi weyn baa waxa yiri waa war moogta laakiin anigu hadaan inta siyaasi weyn in la galaado macna ma laha يعني مثلا شالي عبد الرحمن عبد الشكور iyo khadiija موضوع baa la isku haystay intuu عبد الرحمن yiri hadaan anigu oran lahaa warma noqotay laakiin maadaama عبد الرحمن yiri saxaafada dhama warinaysa dadka wax warinaya waxa ku xisaabtamayaan qofka la sheekada helaya akhrisanaya wuxuu filayo wuxuu yaana ku sii dheeraan taas marka keenaysa mar walba gaabisyada oo xajaabir ka hadlaya waa ka wada jawaab filaya waxa kama tirisoma qaybta kale su'aalaha waxaan ku horeysiinaynaa waxaan ku bilaabanaa ar su'aasha ahayd intee in leeg bay warinta khaldan ay saameyn leedahay dabcan yani qiimeyn boyna qaba baahna oo sheekadu iska daa mujtamaca qof sheekada laga waramo la hebel waa sida ama hebel waa sida ayaa saameyn leh waxa ugu horeysa horta saameyn ku leedahay waxa weyn sida lagu arko moogta sida مثلا لو سغاشن iyo 92 abaar baa dhacday maxaan ku dhahdaa abaartaasi warkeegu suuq galay adduunka oo dhan galay haddana 2012 abaar kala dhacday suuqu si fiican u galay abaartii Soomaalidu isku ekaadeen moogta oo toda level meelaha qaar kood ay gaadho inuu qofka Soomaali yani ay noqoto ama uu gaajoonaya kala la mid qofka Soomaaliya axir waxna Soomaaliya taadi lagu raayo qofka Joonia taas kale waxaan uga jeedaa warintu waxay sawir ka bixinaysaa dadka sawirka ay ka bixinaysaa wuxuu yeelan karaa saameyn toos ah oo qof la kulmi kara ama dadku group ay la kulmi karaan dadka kale say ku arkaan bay ay saameyn ku leedahay warintu ma aha xogta qaldan ha yani warintaas haday qaldan taman leh xogta uu gudbinayo ha saameyntaas ee Soomaalidu waxyaabo ay ka sarigataa jira Soomaaliya ha inaad baadisho tiraahdo had baa isku tago kale ha saameynta la beetimaado biyaas markii la dhow rabo bulshada okay taa laftirkeedu waxa ku yeelanaysaa in qofka hadhow cilmi baaraha baad ay marhabaabinayaan qofka moogta
inuu xaalad jirtay oo kale loo arko wax markaa dadku ay la yaabanaayeen ninkaas maxaa waxa u geeyay tusaalaad soo qaaday oo kale inuu imika de waa madax xanuun moogto laakiin haddii cimri ka soo wareego waxa dhici karta inuu abuurto fikrada waxa uu jiri jiro hebel baaba ka hadlay moogto taasina way dhici kartaa su'aasha labaad maxay ahayd intee laga muhiim tahay ka su'aasha labaad ka barbooday su'aasha waxay ahayd intee in la eg bay muhiim tahay qofku inuu qiyaad iyo waxa loo joogin ka waramo intee la eg muhiim inuu waaqic si fiican khiyaalku waa bada asalka sheekada waaqic siduu yahay inaad uga waranto يعني detail macna sameynayso moogta waxa ugu qurux badan waxa yani maqaalkan uu ku jirtay aan ka sheekeynay markii dhaweyd xajaabir wuxuu leeyahay waxa ugu qurux badan la qoraa waa in laga shidaan qaato wax dhacay laakiin la qoro waxa aan dhicin adoo ka shidaan qaadan wax dhacay aad qorto waxa aan dhicin ka horta khiyaalku waa asaaska sheekada laakiin maca khiyaalka laftirkiisu qofku wuxuu sawiran karaa wuxuu yani wuxuu arki yani wuxuu muuqan karaa waxaan macquul ahayn oo muuqan karin oo sawiran karin khiyaalkiisa ma soo gali karo marka mar walba xataa khiyaalka laftirkiisu wuxuu waaqic ku xidhay qofku noolaado ma sawiran karaa yani kama dareen gudbin kartid midalan Central Africa waxa ka dhacay midalan marka hore waa khiyaal waaqic detail loo yani madrasad baa jirta sheekooyinka ama suugaanta realism la dhaha laakiin iyada laftirkeedu waaqacada ma shaqadeedu ma aha inay detail u gudbiso laakiin inuu waaqacay matasho sawirto waaqacay isku daysa Ibrahim wuxuu inoo weydiiyay marxaladda qaabtaminta soo martay waa su'aal aad u muhiim ah yani shaashu ugu muhiimsan ee khiyaarta ka soo noqotay qaabtamintu ama stylisku yani suugaanta sheekadii ku ka tahay moogta adawaadka farsamooyinka sheekada ay ku ka tahay inuu marxaladda soo martay laga warramo in la darsiyo uu yar baahan tahay xogaa oo yani waxaan hadda ku boodaya maaha waa in isbarbar dhigna midalan maanafa iyo rooxaan iyo nacab jacayl aqoon darro nacab jacayl iyo jiirkan cusub imika sheekooyinka soo baxay iyo xataa sheekada mataqaana macalinka waxa soo dhan istayladaas oo dhan yani waxa filayaa inuu nooc walo loo qoro midalan in waxa ka warramaynay realism Soomaa waxa jira magic realism واقعيه سحريه انه واقع يعني physical in the world of physics dhici kara iyo waxaan dhici karin in la isku laado waxa caan ku ah Gabriel Garcia Marquez moogta iyo qorayaasha Latinka caan bixiyay madrasada Latinka مثلا waxaad ugu tagaysaa مثلا caawid cigo kale sheekooyinkiisa ugu tagaysaa Cabdillah caawid cigo kale rogay iyo mid fantasy dhameystiran maaha magic realism in la isku khaldo واقع رياليزم كعادي يا فانتازي انه ماتش رياليزم كان نبا دوله مثلا كاركتر كميدا ay xaawid leena doolo magto biiba marka isku qaadka oo madrasad style gooni jira marka in stylada la darso laftirkooda waxa weey maxaa ku lahaa sida mawduucda loo darso in styladana loo darso waa mas'ala jirta ku fogaan min waqtiga nagu yar xeerinta baabal iyo ay isla soo qaadeen ekraan horta aan waxaan qabaa adduunka ma jirin mana jiri doonto mana jiri karto bulsho aan xasaasiyad lahayn moogta meel xor leeyahay wixii la doono la dhaama jirta adduunka shaqeeyo faniya jirta nin Chinese ayaa Mareykan tagaya marka dadkii Mareykanka waxay uga tacsiirayaan inuu dawlad dictator oo kiltalisa oo la hadli karin oo dadka cunaha hayso oo nafta u keentay in ku nool yahay moogta wallahi bilaakiid baan haysanayo ma hadli kartaan moogta markaasuu anaga idinka xorriyad badan buu sabab ma anaga Mareykan saxaafad haysan oo idinka midka afka joog qasin kara anaga dawladdu ma iska ilaalinaa wax kasta kala ka hadalna moogta idinka cid aan xasaasiyad lahayn oo laga hadlay cid aan midowga ka hadlayso cadaan ka hadlayso dumar ka hadlayso rag ka hadlayso oo jaamacadaha ka hadlayso looyarada ka hadlayso dhaqaatiirta ka hadlayso cid walba waxa leedahay cid saxaafad difaacday iyo xasaasiyad leedahay moogta work culture waxa la dhaaba yani inuu indhaha saal isku wada shiday carhada loo caadiya ba galbeed ma ka jirta moogta marka
يعني فكرة إنه بشدة حساسية بلده وحبة دبسنة ومرة ويشرتها وينشرت دونتها قفك قرآن مركا وين الدورته حساسية وجوجينيو وحكى نقدر ندلقاته كل الحساسية وجوجيني غير بد كوجين مثل الدقن كالقدريات كوجين مد لما لا يسنا يو إن قيمة لا هيبة أيد كوجين حدانا تربين ندقوشي سنة وحل أبوري كرتا حل أبور عن حساسية ده ووينا فرها لقلين يعني كم قسمين شال حل أبور خطر وسميسو إن حساسية كوجي سو كم قسمين مثلا مشكلة أول حاجة سو نقول دين تموت يعني مسألة دين مثلا محاكورة هذا سلو هايستو إنه حلقة قرأ أو حلقة هذا مش شكل لو سوق عطوا بيتكلم لقى تقالهم يعني قفك قراءة هادو مثلا مجالك الدين هادو أجنبي كويه هادين لقى حكسن كرو سجى شابين موقت نو سومالي وأنا مسلم وأنا دين تبغى خلاص سوما هذا الدين تلاقى حكسن كرو مركهرباء هذا شاب هذا أنا متقعنا موقف كذا يعني سادو دفاع رأيك سادو دفاع عن كرتو إنه موقف كذا الدين كان أنا دفاع عن كرينين هذا مشاكل كبيرة على حلقة بضبطية كذا عاد مركه قار لبسنا سموقت diinta dhexdeeda caadiska ah mesela tusaale waa dhigay xalagadooda xeerka kufsiga filaya Soomaaliya yani eriyaal isku qabsaday waxaan diinta ka soo horjeedaa ay waa eriyada la oran kara cagsiga fiqiga waa qasab in eriyada tiraahdo fiqiga waa qasab in eriyada tiraahdo moogta haddana fiqiga eriyadan odhanin waxaad ku jirtaa yani waxba kale qofka aan ma taqaan garan karin inuu fiqigu waajibinayo in eriya cadcad oo isticmaalo هذا جنسي تاعي ده قلمة تاعي ده كفسي تاعي واحد وانتهى هذا يعني سؤال فقه وفضل شيء دي حاجة شيخه فراش كي قيم ما نصوت تاسق قف كلنا يلهردي ما مردا مساء وقتها marka boqol kunta jawaab soo baxaya qofkaasi ma gaaray xilligii xulunka yani sheekada ku dheeraan laakiin waxaan tusaale soo qaatay inuu yani majaalka diinta inuu yani qofku xux ka dareemo ajnabi ka noqdo oo diin baa saaleeyay moogta diintaadi moogta ma aha wax xirka ka soo dhacay ma hadaan garanayna baro hadaan hore u taqaaninayaan lagu xuxin hadaad ku qaldatayna daqaad ku dhacaa moogta yani raali ahaada wala qoraa moogta mushkil inuu qofka bini'aadamka inaanu qaldami karin yani fikradaas halisa moogta inaanu qaldami karin imika tusaale Cabdillah soo qaato wuxuu ahaa ninka la yiraahdo juxa yani juxa sheeko qoray oo ku saleeyay waaqiciisa Soomaa waxa lagu haystaa waabaad adigoo dhalinyara oo ma taqaana ayaa gabadh wax weydiisay moogta ana haddaan isaga ahay yani hadda qofka sheekada qoraa tahay waxa leedahay ma imiku saa sameeyay leeyahay ma imiku suuq raadinaya arkan may yani haddaan leedahay waxa ka qurux badnaan lahayd inuu qarsado ama aanu yani taas waa arin kale moogta laakiin uu daacad rabo ninkaasi wuxuu soo maray uu ka warramo saan oo kana dhaco wala jabo moogta adoo xal abaal ugu qabtaa wixii lagu noolaa jiray ogaato moogta marka yani mar walba cid dibsataa uu jiri mujtamac kastana uu leeyahay laakiin qofku doorta xasaasiyadu ka hadlay difaacan kara wuxuu raay moogta ma wax ka soo dhaca ma masalada ugu dambaysa ku soo xidhay waxa weeye masalada ku soo xidhay markii horena inuu horta saad u fahantay waa sax weey يعني سأنا وذي وحويان هالكي لوجا بحرام يعني كائن تدي مبيح يعني كائن تدي مبيح ما كان له عد والله العنان كائن تدي مبيح بلا وقت أنا علمي كائن تدي مبيح إنه سياسيين تواضع أشكال كان حسب طول وقت بغيرت كائن تدي كمية لكن أنا حمد شيء specifically يعني توسع شكله سجان تسجود لكن شكله سجونية لأنه سجان شكله وسجان توجو قات كبلاران له قبل كقات بلاران تاعي هيستو كقات بلاران تاعي يعني حشكله وري كرتو قبل يقولوا موري كرا سبيس كاس ما هيستو يعني حرية إريادة يعني هذا العادي القرية وقت قبل قوائن مشانك كفردية وقت حرية ما هيستد محان كورة هذا هيستا مساحات انت لك يعني لحت قادس هيستو 8 دقيقة خلاص فيلم بيشكو بدش marka waxaan u jeedaa sheekadu suugaanta ugu balaa suugaanta yani xamuulka ugu balaana qaali karta meesha ay ka gaabinaysaa waxa weeyaan tajaarib tala maray kala duwan mujtamac maray inoo sheekooyin loo rabo
khayaal lagu darahaa la qurxiyahaa la fool xumeeyahaa oo arrin kale laakiin tajaarib nololeed oo iyaga laftirkoodu sheekay yani novel kasta ka qiimo badan yani novel kasta imika waxa jira daahirada waxa jirta yani shaacsan waxa jira phenomena inoo nima dad karti u leh qoraalka sameeyaan ay adduunka wareegaan hindi u tagayaayo nin faqiira oo mataqaana mesela homeless دربي شيء فور سنة وكشي كيسنا حبوا تورتوريا شلمات بوير تورتوريا عشرة عاوق يعني قف كني نلاش قف كن كونوا ياكم ولا واحد قرايبي هذا وقار رميان كانوا لقي أرك خير وقت وحاسوا هذا وشيء كذا يا وبوك نوفل كسمينا يا ودوك الجرينا يا وكم مع قاعدة يا أو لقي يا وين تذكر قديكو إنه سووا شيء كذا اختراعي وقت مركا يعني كل يرين هل كانوا سعودي هل كان سياحين وأنا تفهمت ما تقرب مري أدود ما سنتين دبعتنا أدود ما سنتين تيم كسمنا أدود ما تيهين أنت عاجزتنا أدود ما تيهين أنت كعدنا أدود ما تيهين سلام يا دماتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ عبد الله أدود ما تسيء هاي برنامجك هالكاس نوجوك برنامجك تحنها دحدة أقوان تقيبتي سجالات أدبنا كم هالعدنينا كسوق يبقلكينا صلاة صوت كنينا كدي بوح أسوق صلاة لابنينا فوتو جروب يو دانجة إيشهن ونويالا سودوات